qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan xaafadda Masalaha ee magaalada Hargeysa ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu wax ka qabto muran ka taagan dhul ay lahaayeen oo ay sheegeen in dad kale lagu wareejiyay. Axmed Yaasiin Cali Waashi iyo waliba eheladiisa oo halkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen sifaha loo maray dhulkaasi iyagoo halkaasina ku soo bandhigay dhammaanba sharciyada ay u haystaan oo ay sheegeen inay dhameystiran yihiin. maanta halkan waxaan kaga hadlaynaa oo kaga cabanaynaa dhul aan lahayn muddo dheer sharcigiisuna noo dhan yahay in badan oo horena aan saxaafadda kaga hadalnay madaxweynaha aan uga cabanay in ugu dambeyntii imika waxa la sheegay dhulka waxa la sheegay inuu madaxweynuhu soo qoray digreeto uu ku qaybinayo digreetadana maanaan arag markii qaybinta la bilaabay aniga waxa la soo daayay shalayto waxaan ku xilnaa saldhigga dhexe 3 maalmood iyo 3 habeen muddo ka badan muddadii uu sharcigu ogolaa maanta oo ay tahay 5tii bishii shanaad waxa ka dhacay goobtii waxa lagu seesiyay dhulkii xoog waxa lagu xidhay 6 qof oo qoyskeyga ah waxaan halkan uga soo jeedinayaa haddii ay tahay baarlamaanka Soomaaliland in golaha guurtida xuquuqal insaanka iyo gudida cadaaladda iyo dhamaan shacab iyo dadweyneba shacab iyo dawladba bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay dhulkaasi waa hanti aan leenahay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuma taalo hanti uu qof leeyahay inuu madaxweynuhu qaybiyo ama maamulka laba waxaan leeyahay ma jirto aan ma garanayo xeer u fasaxaya madaxweynuhu inuu qaybiyo hanti aan leeyahay halkan waxaan ku hayaa sharcigeedoo dhameystiran intaasi waa go'aan guddi fulineed oo aan u baahanahay inaad sawir ka qaadataan waxa kale oo ku xigta wasiirka wasaaradda howlaha guud oo ogolaasho sharci dhul oo tilan ugu ogolaaday ilaa nagu amray dawladda hoose waxa kale halkan ku hayaa waa digreetadii madaxweynaha oo nagu kala xadeeyay madaarka iyo deegaanka marka dhulkii naga soo haray madaarka weeyaan dhulkan maanta la qaybiyay xoogna lagu qaybiyay anigana intii qaybtiisu dhacaysay la xidhay imkana lagu xidhay dadkii kale aan dhulka qoyskii ka mid ahaa waxa kale halkan ku hayaa dhammaan in la naga jaray dhulkaasi dantii guud oo aan lagu lahayn wax dan guud ah qoraalkaasi waxa la naga jaray garoomada ardayda ay ku ciyaarto kubadda waxa kale oo la naga jaray 4 baloog oo lagu sameeyay bridge-ka labaad ee caasimadda Hargeysa dantaa guud dhammaan waxa naga jaray maayarkii hore maayar Jicilim kala xafiiskiisu yahay madaxtooyada waxaan madaxweyne dhammaan sharcigan wuxuu madaxweynaha hor yaalay 3 sanadood u dambeeyay cabashadeeduna waa markii shanaad in TV-yada ka hadalo jaraa'idkana ka badan suldaanku in badan buu ka hadlay waxa jirta qoraal uu suldaanku sameeyay oo uu ku cadeynayo inaanu dhulkaasi ahay dhul dan guud ah isla markaana uu goobjoog ka ahaa suldaanku dantii guudana laga jaray goobjoogna uu ka ahaa sharcigiisa madaxweynaha anigu waxaan ku codsanayaa madaxweynuhu muu imanin halkan manu arag waxa afka lagugu riday madaxweyne adiga dad kuma naarag waan ku salaamaya waxaan ka codsanaynaa inaad arrintaa hubin ku samayso arrintaasi waa dulmi waana la dulmiyaya dad baana dulmiyaya waxaana doonayaa inaan anagu dambi galo qofkana dambi laguma qasbay inuu galo marka waxa weeyaan cadaadintan iyo waxaan anagu waxa weeyaan garanayno sharcigeeduna uu dhameystiray waana halkaan ku dhalanay sharcigeeduna waanu haysanaa xuquuq xaqii ay dawladdu nagu lahaydna waanu sugnay cashuurtii waanu sugnay madaxweyne waxaan ka codsanayaa arrinta afka lagugu riday inaad iska hubiso